Mid ka mid ah bacadlayaasha Lula Lemon ayaa habeen loo soo dhacay iyadoo la qaatay wixii lacag ahaa ee qasnada ku jiray. Hase yeeshee waxay dambi baadhayaashu ka shakiyeen in ujeedka meherada lagu soo dhacay aanu ahayn in la xado laakiin uu ahaa sabab kale. Haddaba dambi baadhayaashu maxay ka shakiyeen ay ugu malaynayaan inaanay xadnin awgeed loogu soo dhicin. Sidoo kale qadiyadan markii la xaliyay ma siday dambi baadhayaashu u malaynayeen bay noqotay talo mise Lula Lemon waa meherad amba waa bacadle lagu iibiyo maryaha lagu jimicsado oo leh qaybo fara badan. Sanadkii 2011 bishii saddexaad 11keedii ayaa agaasimaha Lula Lemon faraca Bethesda ee Washington ku yaala ayaa 8 subaxnimo markay ahayd ay meheradii timi si ay u sii furto. Caadadeeda waxa ahayd in shaqaalaha xilliga shaqaaluhu meherada imaadaan inay in yar ka hor timaado ma garanayo waxa laga yaabaa lacagta ay kuwa shiftiga habeenkii ay ururiyaan iyadoo subaxdii kuwa kale indaanay ma qaado ana isla dalka muuji almuhim markii ay xilligaas 8 subaxnimo ay timi ayaa waxay aragtay albaabkii meherada oo in yar furan xilligii shaqaaluhu imanayeen ma gaadhin kulada xataa shaqaaluhu soo hor kalaheen albaabkina si fiican loo furo ayay wax istiri shaqaalihii maxaa la ilaaway in albaabka xulaanba way gashay markii gashay ayaa waxay aragtay meeshii alaabtii wax sidaas ah kama khaldana laakiin mara yar iyo wax noocaas ah dhulka yaala hore si socotay waxay aragtay bahalkii lacagta meeshii lagu guri jiray oo inta si loo soo saaray rasiibkii lacagta lagu goyn jirayna saad dhulka ugu wada daadsan yihiin. Agaasimihii inta naxday markii dibadii soo booday iyadoo la tuugba meherada soo dhacay oo ka baqanaysay dukaanada imika meherada ku jiro dibadda markii soo booday ayaa waxa arkay nin sugayay meherada Apple in la furo dadka sugayay mid kamid ah yacni meheradooda wax ku dhigsaneyd farac kamid ah faracyada shirkadda Apple waliba xilligan waxa la yiri waxa soo baxay iPad 2 oo safar badan baa lagu jiray faracyada kala duwan ee shirkadda Apple kadibna dadkii sugayay in la furo mid kamid ah ayaa arkay gabadha iyadoo naxsan soo booday kadibna ugu tagay wax ku yiri waxa ku dhacay waxaan ku caawin karaa kadibna waxa jiro waxaan maleynayaa meheradeeda intuu ku soo dhacay kadibna hada raali ka tahay ma kula soo eegi karaa hayo way wala galeen markii galeen hore socdeen ay waxa arkeen qasnadii waalan hore u sii socdeen markii meherada hore u sii galaanba dhinaca baabka laga yara qaatay laakiin markii hore u sii galaanba meheradu sii waalan alaabtii dhulka wada taala hore u sii socdeen kadibna xarkeenba dhulka oo dhiig yaalo way naxeen ninkii markiiba telefoonkiisa la soo baxay soo neeyay u qaraaco yacni askarta u qaraaco wuu la soo baxay markuu la soo baxay baa ayaa uu cod maqlay labadoodu way naxeen waxay siraheen turmatuugiiba ku jiraba kadibna waxay arkeen codka xagga suuliyaasha ka imanayo way tageen waxay arkeen in gabadh kale ay ku xidhantay halkaas gacmaha waxaana isku xidhantay gacmahana sare loogu xidhay kadibna askartii way la hadleen ambalaasyadii way la hadleen gabadhii agaasimahayd baa garatay markii ambalaasku yimaadeen askartii yimaadeen gabadhii xidhxidhneena laga soo saaray sidoo kale gabadh kale oo gebigeediba dhiig badan oo dhiigada bal dhiiga saa ugu jiifta beerka u jiifta laga soo saaro meeyda ayaa way garatay labadoodu waa shaqaalahayaga. Haddaba labadan hablood maxay yihiin kaleeto yaa meesha u soo dhacay labadan hablood oo mid waxa weeyaan Britney baa magaceeda la yiraahdaa waa 29 jir waa inanta dubka madow leh yacni inanta madow weeyaan sidoo kale waxa weeyaan inantii labada lugood ka xidhnayd gacmahana sare ugu xidhnayd weeyaan
waana inanta nool. Ta kalena waxaa la yidhahaa Gina la yidhaahaa, waa inantaas timaha buniga leh, sidoo kale waa inan cadaan 30 jir weeyaan, waa ta dhimatay weeyaan. Kadibna dhakhtarkiiba waxay qaadeen inantii Pretty ee noolayd, Prettyna la yidhaahaa noolayd, iyadoo dee dhaawac fara badan ku yaalo, inkastaan dhaawac saa u halis aan ahayn, oo madaxa ayaa dhaawac iyo caloosha weeyaan wax dhaawaca, laakiin dhaawac saa u sii weyn caloosha mooyinka madaxa ayay dhakhtaradu istiraahiin waa intaasoo dhiig madaxa kaga furmay. Dhakhtarkiiba la geeyey, dhakhtarkii markii la geeyey ayaa markii la dhayey la arkay inaanu wax dhiiga maskaxdeeda ku furmin, ayaa markii saa u soo miirooday ee xaaladeedu caadi yara noqotay ayay waxay kaga dhigtay Gina meeda, Gina ma caafimaad qabta, Gina ma nooshahay. Kadibna gabadhii ahayd dambiilayaasha mid ka mid ah ayaa ku tiri way ka tooftay, ooyin bay ku waalatay, wala aamusin kari waayey. Kadibna waa la dejiyey, kadib waxaa lagu yidhi maxaa meesha ka dhacay, maxaa dhacay, bal ma noo warrami kartaa. Kadib Britney waxay tiri markii xilligii shiftigeygu uu dhammaaday waqtigeedii 9 habeenimo ayaan meherada iska soo xidhnay. Hase yeeshee meheradii markaan xidhnay, meheradii inaan habayno oo lacagta ay habayso Gina, waayo iyada qasnad fureeda haysay, aniguna sidoo kale alaabtii baan habeeyey, meesha waan masaxnay. kadib meesha masaxnay 9:40 markay ahayd ayaan ka soo baxnay. 9:40 markay ahayd markaan ka soo baxnay ayaan anigu waxaan arkay inaanay shandadii yareyd ee aan lacagta ku guranayay inaanay ku jirin, yacni maha shandada weyn, waxay shandada yar ee lacagta iyo kaararka lagu gurto, halkaas nigu soo sawiraya, waa halkan niga muuqda maaragtay lafteedaas weeyaan, inaanay taas igu jirin shandada. Kadibna Gina ayaan qaraacay wacay, yacni markaas waxaan ku yiri shandadeedii yareed lacagta ayaan ilaaway. Kadibna waxay tiri okay kaalay, weli ma baan anigu dhaqaaqinba. Kadib waan wada galnay, markaan galnay albaabka dambe ayaan ka galnay. Albaabka dambe markaan ka galnay jooga anigu nimankadan sheekadiisa warinaya ma fahmin. Albaabka dambe waxay uga galeen, albaabka hore uga gali waayeen, laakiin waxba igu yiri waxa laga yaabaa maadaama imika 9:40 tahay oo suuqu iska furan yahay xilli hore ay tahay, waxay diidayeen in dad u soo galaan, oo kadibna albaabka furan marka la arko dadku way soo galayaan si wax u iibsadaan. Sababta awgeed baa laga yaabaa in albaabka dambe meherada uga soo galeen. inoo sii wad Britain. Markaan albaabka dambe ka soo galnay ayaa anigu waan waayay shandadeedii yareed. Markaan waayay ayaan Gina waxaan ku yiri shandadeedii waan waayay. Kadibna Gina waxay igu tiri okay kaarkayga ba qaado, maadaama shandadan aan diiday kaarkan baska ruuxa lahaa ku jiro, waxay ku kaarkayga ba qaado, anigu kuma baahnay maadaama gaari waton gaariga ka xaysanayo. Hay baan ku annagu sida sii bax ayaa albaabkii dambe ay Gina dowdinay soo xidho. Markaan ka soo galnay 2 nin oo wajiga ku xiran maas ayaa noo soo galay. Aniga ayuu mid timahay qabtay, xagga suuligu i kaxeeyey i jiiday, mid kale ayaa yadna qabtay, aniga wuu xulxulay, madaxa wuxuu iga dhuftay. Gina-na qayladeedin baan maqlaayay. Intaas waa waraysigii Pretty ay askartu ka qaadeen. Bal haddaba isla eegno dambiilayaasha iyagu waxay ka heleen goobtii ka dhacay dilkaas iyo dhacaasuba. Dambiilayaasha waxay la wareereen in meesha 3 raad oo quraata ay joogaan, in 3 raad oo quraata. 3 raad waxay noqonaysaa labadii tuug ee Pretty sheegtay iyo ina maayde hala hablood bay haysaa, waxay noqonaysaa labada hablood iyo tuug quraata. Marka Pretty ma been sheegtay. Sidoo kale raadka dibadda waa mubixin, buur bay xidhnaayeen, buurkii raadkooda dhiigii lagu soo taabteen way ku socdeen. Meheradii oo dhan way maasha Allah meheradii dhex dalxiiseen, meheradii oo dhan raadku haystaa, laakiin wax dibadda ugama bixin. Follow biray noqdeen oo dowladda sidoo kale
buudhka raadka buudhka labada beer buudhka ee raadka sameeyba meherada yaala